وسوف تعلمون با إلهي سبحانه وتعالى وسوف تعلمون مرضا بيان إذن قرن دونتان با إلهي سبحانه وتعالى ما دام أي عين كاسيتا هاي قرآنك كان إلهي سبحانه وتعالى وحكا قوار ما يوحتر بضا أقون تربضا أقون تاسوكو سابسا مد عركا مد دولكا قرآنك هي السنة دبا أقون تربضا وقرآنك كوار ما يبا وحا أي موقتي في عصر الاكتشافات وقتك كان بني آدم كو أقون تساي هرم مرتاي وح بدن وقادي ما ندعي كرته شيء حقيقة علمية هي إنه خلافه حقيقة علمية أو شيء كتابك يا سنة وهي إلهي بأوحلا يقول أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض إلهي ما وحا وقور رمي سانباء الله سبحانه وتعالى وحانو كوغين عركي يرلك ما ندعي كرته ورانا لي الرسول كيسو كوغين عركي يرلك إنه ساينتيفيكالي لبروف قرية وغير معقول ووحان معقول هاي إلهي وحي وشاقي أيوم بعد دبا سيدا وقيد با إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحوينوت المامية وحيابا بدن بوكا ورمية وأقوم بشركو ومان تقوم وحكو أغادي عصر قانا إنو تشوقنانا بشريدو إن بدنو كمي وحي إسلاق بالشي مسائلك علمية التجريبية المشاهدة كسليسان erayada si ma layla garta science-ka waxa la yiraahdaa waxna waa theories aragtiyo taxliilaad inta la sameeyay istintaaj loo filayo 70% inay correct noqoto shayga haduu boqolkiiba 70 theory-ga la yiraahdo waa correct waa maqbuul cinda ulama scientifically waa proved baa la iska yiraahdaa walow 30% of it ويهي وحمدو وان لا arki karayna ama saxayn laakiin shayga hadii scientifical proof kiisu marka laabka la geeyo la wadwaday 70% lagu kalsoonaado inuu waxan sida u soconayo dawaa'ir ilmi agtooda waa maqbuul meelaha cilmiga agtooda waa maqbuul laakiin aqoonta waxa kamid ah wax isaga la arko aqoomaha nooca kana ee laabka gala ee طريق loo raaca leh waxa ay ku saleeyeen intooda badan wax uu basharku aqbalo iyadoo aan loo eegin cidda tiri yani waxyaabahan jaamacaadka ama scienceska maanta la sheego laba qaybood qayb wuxuu yeeshaa suuradda ama hadhka ninku waxa uu rumaysan yahay ama gabadha waxay rumaysan qofku wuxuu rumaysan yahay mahma lagu yiraahdo waa shay cilmi iyo khubara sheegtay haddana wuxuu leeyahay suuraddii qofka kan oo ah mabaadi'dii uu rumaysnaaba ka dhex muuqata مثلا ninka laftiiska ah shuuci ama shuuci xigeen kaag dhow kuwa bidixda yiraahdaan ninka ah markuu dhaqaalaha ka waramayo dhaqaalahaasi wuxuu yeelanayaa maxay khabiir dhaqaalaha aado laakiin dhaqaalahani wuxuu leeyahay suurad ninkan maskaxdiisa ku jirto maxay suuradda laftiiska waa dhaqaalihii qolada bidixdu qaabkay uga warrami jireen ama u qaabayn jireen xagga kale cagsigeeda markuu yahay ninka kapitaliska ama midigta ahi ee dhaqaale ka warramaya ama politics ka warramaya ama qofku waxa uu rumaysan yahay ma dhaafo laakiin waxa laabka gala ee more scientific ahi ma kala laha qofku wuxuu rumaysan yahay kuma xidhna مثلا xisaabta miyaa ku aragteen wax la yiraahdo waa laftiiska sida le iyo bidixda cayn kan qabta iyo midigta cayn kan qaba iyo culimada yahuuda sida qabta iyo kuwa muslimka cayn kan ka yiri واي حيو يلم ويد يعني هو فيجر إنسان أقبل كرين عقائد كله تجربة لاب كسب أحد إلا ما يرى هذا تجربة بوديس بكدم بيجي واسكم هدو بوديس كدم بيجي يهدو يهودي كدم بيجي هدو كريستيان كدم بيجي هدو مسلم كدم بيجي scientifically اسكو سبب وصابح حسا
laakiin human scienceska iyo wax la mida taariikhda bolosiga dhaqaalaha aartka waxa hadduu yahay cidduu ka timi sawirkeedii buu wadataa taas iyadu laskuma diidana idan bashariyadu maanta qayb bay ogoshay inuu cilmi xiyaadiya yahay qaybna ma ogola qayb bay ogoshay inuu cilmi xiyaadiya yahay oo waa qaybtaasi laboratoryga intay gasho la arko ee taxta tajriba hoos timaada qaybtaasi bini aadamku wuxuu aqbalay inay xakam noqon karto inay wax dadka u dhaxeeyato waxna lagu buruuf garayn karo waxna lagu disburuuf garayn karo waxna lagu cadeyn karo waxna lagu dumin karo ayaa casriga kan la aqbalay quraanku markaa nabi muhammad ku soo degay salawaatullaahi wa salaamu alayhi 14 qarni ka hor ayaa waxa uu qorayaa masaa'il basharku dhawaan uu ogaaday kadib laabkan iyo mijharkan ama microscope-da tan iyo qalabkan wax lagu baadho scientifically markay koreen wax hadda la gartay ayuu quraanku wuxuu ka warramayaa 14 qarni ka hor taasi bay culimadu leeyihiin waxay daliil cad u tahay inuu waxa kan yahay waxyi ku soo degay nabi muhammad ee aanu ahayn nabi muhammad iyo casrigiisii wax la ogaan karayayba idan waa nooc ka mida mucjisaadka quraanka sida ogeed ayaa مثلا رابط العالم الإسلامي هيئة بيلاده اللي يراده هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة إعجاز كعلمي يا قرآنك هي السنة كصابسان ساينتيفيكا مثلا شيخ زنداني مركو مدحده كان هنجري هيئة داسي وحيسمى بحوث دكتور بدن له waxaa jirta 14 nin oo khubarada dunida ee la tilmaamo ah oo cid waliba fanni gaar ah khabiir ku tahay ayay dooda la galeen 14 kan nin doodahay la galeen waxay u samaysanayd su'aalo la weydiinayo مثلا todobada nin ee cilmi lajinna dunida ugu khubaraysan looga dambeeyo 7 nin bay jiray oo ay markaa ku tilmaamayeen inay yihiin science embryology iyo waxa ku saabsiisan cidda loogaba dambeeyo dunida waxa kamid aha ururka science qaybtaasi ee North America oo dhan ninka haysta Canadian Keith Moore la yiraahdo Keith Moore wuxuu leeyahay book human development ama human embryology ga buugiisan la yiraahdo 8 luqad ku qorayay mostly jaamacadka dunida waa buuga oo ah reference buuga qaybtaasi ah ee loo isticmaalaba وأنك كنت المامان أبو علم الجنة في كندا أبها علم جنينك قضية تنمرك بلابه يبو زنداني لي هي وحن أركيبو يري أنا قوم مسألة بحثنا إياه أيان أفر إياه طبعا فيلم وقصة سيسن ilmaha uurka sidoo u koro oo 14 kaba la leeyahay waxa taxqiijiyay ninkan baan arkay dabeetana nin caalim oo faniga kan aanu imo waxaan ku yiri buu yiri war ninkan Keith Moore kan muxuu yahay meel walba uu ku qoran Keith Moore wuxuu yiri ninkan ma aqoonin ninkani waa abu cilmi la jinna cilmiga ka nooca kana waa ninka ka aaba dunida ugu dambayso xagu jooga baan ku yiri buu yiri waxa la igu yiri buu yiri jaamacadda Toronto ku taala ayuu jooga ما لا حديد كريه هاي نكي ما حديد لا سمينay buu yiri ana xididka la sameynay waxaan idhi waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiino welcome buu yiri kaalaya 8 su'aalood bay weydiiyeen ay soo qorteen 8kii markuu uga jawaabay ay yiraahdeen 8ka jawaabood quraanka iyo xadiiskan ku haysanay waxaan macquul ma ku hadlaysaan waxay yiraahdeen 8ka mas'alo adigu aad leedahay dhawaan baa la wada ogaaday ama goortan baa la xaqiijiyay ama aynkan baa la xaqiijiyay intaba waxay ku qoran tahay nusuus iska caadi iyo xadiiskii nabiga iyo aayaadka quraaniga bay ku taala misaladii markii loo sharxay ee uu arkay nusuusta bal yiri tusay nusuustii